soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Aadam waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa dabeecado laga yaabo in aad leedahay balse naftaada ka dhigayo mid destroyed ah ama burbursan oo daciif ah jir ahaan maskax ahaan iyo caafimaad ahaanba sidoo kale waxaan ku sheegi doonaa marka sida aad naftaada uga badbaadin karto arimahaasi mawduucayna si toos ah u gudagali doonaa maanta midda ugu horeysa ee naftaada burburka iyo daciifnimada u horseedaysa oo aan adiga dareensanin ayaa ah ka tagida salaada iyo goosgooska salaada muuqaal aan hore u soo saarnayna waan ku soo sheegnay salaada waa xiriirka adiga iyo Ilaahay idin dhaxeeya marka haddii aad tahay qof salaada ka taga ama googooya noloshaada kama dhamaanayso burbur iyo daciifnimo kalsooni darro xanuun joogto ah dareemida in aad tahay qof xun oo aan dhamaystirnayn mar walbana dib iyo kadeed kama baxaysid midda labaadna waxay noqonaysaa sameynta caadooyinka xunxun kama gambanayno in aan sheegno kumana dheeraanayno balse haddii aad tahay qof daawada ama ku saladan daawashada pornography-ga noloshaada waxay si dhammaystiran u noqonaysaa mid burbursan jir ahaan maskax ahaan caafimaad ahaan iyo anshax ahaanba mar haddii aad tahay qof ku saladan daawashada pornography-ga waxaad dareemi doontaa in aad tahay dhammaan inta aan soo sheegnay sidoo kale ma noqonaysid qof go'aan leh ma noqonaysid qof guul xaqiijin kara ma noqonaysid qof ku fakara horumarka waxaad noqonaysaa qof aad u dambeeya waxaana shaki ku jirin in aad noqonaysid qof nolosha ka dhacay gabi ahaanba midda saddexaad ee noloshaada burburka iyo fashilka u horseedaysa waxaa ka mid ah gamingka run ahaantii middan waa mid dhammaanteedna saameynayso ka dhalinyaro ahaan ama aan ka simannahay inkastoo ay jiraan dhalinyaro aysan caado u ahayn dheelida geemka anigaan kula hadlaayo waan samayn jiray geemka waan dheeli jiray ilaa hadda marmar waan dheelaa laakiin aniga waqtigayga gabi ahaan umaanan hadiyadeenin waxaa laga yaabaa bishii ama asbuuciina hal mar eego inaan marmar dheelo waa laga yaabaa anigoo hawl ama shaqo ii taalana lagama yaabo inaan ku saqajaamo inaan dheelo game sidoo kale dadka aan gameka dheelin kama dhigno in ay ka fiican yihiin midaas balse ayaga waxay ku saladan yihiin in waqtigooda ay u hadiyadeeyeen daawashada filimada ama daawashada TikTokna waa barta kaliya ka daran gameka oo qofka hadduu mar galo kama baxo xitaa asagoo shaqo iyo hawl u taalo ayuu isticmaalaya qofka mar hadduu TikTok galo siduu uga baxa way adag tahay يعني way fududahay si aad u furtid TikTok oo applicationka aad u gashid laakiin si aad uga baxdaa ayaa adag hawlahaaga iyo shaqada ku taalana way ku dhaafinaysaa mid afraad ee ka dhigayso noloshaada mid burbursan waxay noqonaysaa dib u dhigida hawlaha aad qaban lahayd maanta tani waa mid aad noo wada saameynayso qofkana u horseedayso in uu dib u dhigo hawl uu maanta qaban lahaa tusaale waxaad joogtaa habeen inta aadan seexan ka hor waxaad qorshaysay in biri subaxdii markii aad soo kacdo aad qaban doonto hawl ama aad meel aadi doonto balse markii aad soo kacdo waxaad go'aansanaysaa ama naftaada kugu sheekeynaysaa in aad dib u dhigto oo aad isdhahdo iska daa maalinka dambe ayaa samayn doontaa ama aad aadi doontaa meeshaasi waxay dib u dhigaysaa horumarka naftaada samaynta arrinkaasi marka midka shanaad ee burburka noloshaada ka qayb qaadanayo waxaa ka mid ah waqtigaaga oo aan kontrolnayn haddii aadan lahayn jadwal aad ku dabaqayso noloshaada oo waqtigaaga uusan ku kontrolnayn waxaa hubaal ah in aad ku fashilmayso dhammaan hawlihii aad doonaysay in aad qabato tani waxay qayb ka noqonaysaa marka burburka noloshaada iyo dib u dhaca noloshaada how you can overcome it then sideed ooga adkaan kartaa marka ama sideed ooga bixi kartaa noloshaas fashilka iyo burburka ah haddii aad ku dhaqaaqdo cagsigeeda marka inta aan soo sheegnay waxaa hubaal ah in noloshaada iyo naftaada ay noqonayso mid aad u horumarta ama aad guul ka gaarto mid ugu horeysa ee aad u baahan tahay in aad samayso si aad uga baxsato burburkaasi waa hagaajinta salaada iyo xiriirka adiga iyo Ilaahay idin dhaxeeyo mar haddii uu wanaagsan yahay ama wanaagsanaado xiriirka adiga iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin dhaxeeya wax walba waxay ku noqonayaan wax fudud waxaad dareemi doontaa in aad tahay qof awood u leh in uu ka baxsado ama ka badbaado caqabadaha nolosha waxaad ku raaxaysan doontaa nolosha waxaad wax walba u kaashan doontaa boqorkaaga waxaad iska iloobi doontaa walwalka iyo murugada marka hagaaji salaadaada si ay kugu hagaagto noloshaada midda labaadna waxay noqonaysaa discipline ama anshaxa waa waxa ugu horeeyo ee go'aaminayo shakhsiyadaada sida ay tahay haddii dhaqankaaga iyo anshaxaaga uu xun yahay wax guul ah lagama yaabo in aad gaarto hana ku tashan in aad guul gaarto there is no success without discipline waxaan dhahaa inta badan Soomaaliya waxay la hagaagi la'dahay waa anshaxa waxaad maqraati ka tihiin anshaxa dadka intooda badan in uu yahay mid aad u liita haddii uu yahay siyaasi haddii uu yahay qof caadiya iyo hadduu yahay qof howlo kala qabtaba anshaxa waa waxa ugu horeeya ee naftaada ka dhigayo qof horumar sameyn kara naftaada ka dhigayo qof qiimo leh marka waa muhiim inaad hagaajisaa anshaxaaga ku dadaal in aad ahaataa qof dhaqan wanaagsan oo dadka dhaqan wanaagsan kula dhaqma
midda saddexaad waxay noqonaysaa jooji dib u dhigidda hawlaha. dhibaatadeedana waan ka soo hadalnay. marka waa inaad ka taqalustaa dib u dhigidda hawlaha oo hawsha aad rabto in aad maanta qabato qaba maanta. haddii aad rabtid in aad hadda kanaalkan in aad asxaabtaada la wadaagto, ha sugin inta uu muuqaalkan ka dhammaanayo. hadda la wadaag si ay kula daawadaan. midda afraadna waxay tahay control waqtigaaga ha controlnaado. waqtigaaga u yeel jadwal oo ha noqon qof waqti kasta la heli karo. waqtigaaga ha ku qorshaysnaado oo qof jadwal leh noqo. midda shanaadna iska ilow gaminka, daawashada TikTok-ga ama dhammaan waxa dilaayo waqtigaaga. ugu yaraan iska yaray waqtiga kaaga baxa inaad TikTok daawato iyo inaad game dheesho. sidoo kale marnaha u ogolaanin in ay kaa mashquuliyaan hawl ku taala. midda lixaad una dambaysa waxay noqonaysaa you have to eliminate watching pornography. waa in aad ka taqalustaa daawashada waxyaalaha anshax xumada ah ama sameyntoodaba. noqo qof adag kana guulayso caadooyinka xunxun. waxaan rajaynayaa ugu yaraan muuqaalkan in noloshaada uu wax kusoo kordhin doono insha allah. fadlan kanaalka kusoo biir oo subscribe dheh ama ugu yaraan hal qof la wadaag oo asxaabtaada ka mid ah. muuqaalkanna like-taa ka hilmaamin. waad ku mahadsan tahay taageeridaada. assalaamu calaykum.